inta badan madaarada caalamka waxaa ka jirta inaad aragto rakaabka dhulka taagan oo maraya dhanka bidix ee diyaaradda ay fuulayaan waana halka uu istaago gaadhiga yar ee sallaanka xambaarsan kaasoo ay dadku ku galaan barnaamijkeenana waxaynu daaha kaga rogeynaa sababta diyaaradaha looga fuulo dhanka bidix arrimo la xidhiidha nabadgelyada rakaabka darteed waxaa lama huraan noqotay in dhaqdhaqaaqa dadku ay saameeyaan dhanka bidix oo ah dhanka bidix ay ka fuulaan diyaaradaha maadaama dhankeeda midig ay xilligaa shidaalka ka qaadanayso islamarkaana laga xaraynayo shandadaha iyo alaabta ay dadku sitaan waana nashaqada laga soo dheegtay maraakiibta oo iyagu ka farsamo horreeyay diyaaradaha islamarkaana dhanka bidixun laga foylo dhankooda midigna xamuulka lagaga rogo amaba shidaalka laga siiyo iyadoo diyaaradaha waaweyn ee xamuulku ay albaabada alaabta iyo badeecadaha laga rogo ku leeyihiin dhanka dambe ama wajahada horeba qaybta labaad ee barnaamijkeedana waxaynu ku eegaynaa sababta diyaaradaha rakaabka loo saaro faashka ama jidibka xaabada aynu ku jajacano faashka ama jidibka ayaa noqonaya shay ka muuqashadiisa diyaaradaha dhexdoodu aanay niyadda u wanaagsanayn maadaama loo adeegsan karo howlo dhanka argagaxa ama aftuudka haddana waxaa diyaaradaha rakaabka badankooda ku dhex arki kartaa shayga iyo weliba alaabooyin kale oo la halmala faashkan ayaa loo isticmaalaa xaaladaha degdega ee ku iman kara diyaaradda xilliga duulimaadka sida marka dabka kaco diyaaradda amaba waxaa loo adeegsadaa in lagu jabiyo albaabada diyaaradda haddii ay timaado in albaabka dhanka dibadda laga xidho marka ay dhulka taagan tahay iyadoo xitaa haddii diyaaraddu ka baxdo gacan ku haynta lagu jabin karo albaabka u dhexeeya rakaabka iyo duuliyaasha ku sugan barta hogaaminta